wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay no waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay akhyaaraysiin salaami inkasta oo maalin iska mowqif alan aragaan wallahi aan la yeelaynin billahi aan la yeelaynin ima fadaan iyoonay muuraweelan iyoonay ana diidiyo ana ogolaadi weligin bisan iska maskaha ee malsin aragnaan miyaa sida meesada is dhaama ma jidha iyo waa jidha wasku qaban jidheen oo waxaan jirin way jiraan wasku oran jidheen war gabar yaroo 15 jir ah baraamburka qaadi adiguna sagaara fiix daaqaysa waa u daaman ekeed nin weyn oo caaytama wax ka liita lama arkay nima baasha istaxiyaha lagu daro war qof markuu tukanayo aan ataxiyaadin ma jira wari ay leeroog ka ataxiyaasateen fidhig walaayka agri fadeen qalisin ku fadeen aryaa ruuxu baraka kaaga dhace muraqara cambuula ya qamboob dalaandala iyo foloqya nool falfaliir dabaaja hadii leesku dhaanyo goorba daawo shirkaasa dardaarankeena ilaahay kuma anficino waka iska leh waa ku xaraarkaas الله ما هو عذران عوني يا أدائي كان جرا واحد عيور هيسد عنبر إدقنسو حالا شباب عركان لوغا صودع جلب هدهن بوالا هدهن بصرة هدهن عركا قيبا كميد هادي لي وحا أمير دبا قدوم مايا والله يابا والرواب كساسن كوكوبي قواها مسديرو ما يادا يوردا قنتال سدا كل عرطي ورما الدولة دا الدقال غاطي وحنوشك أريا وحماقو كده شمان وقود دنبايس الدولة شباب لا ديرتا مرايكنا قربت دقيقية والشعب لا دقال معاوسلي ميادان مقل warqolada macawsleyda aleedin oo shacabka oo la dagaalantay shabaab waxa hogaaminayay nin la yiraahdo Hibaad Cali Dasar asagana waa shahiiday Allah u naxariistay aryaadi toor shahiid mar hore u dhinta Allah u naxariistay war shabaab in si toos ah loola dagaalamo dawladdu ma ogole macawsleydan aad sheegaysaan ama weerartaa aryaa amba hal la weeraro amba hal iska dhaafay dadku ilmo horay difaacahayaan inay dagaalamaan waa ku qasban yihiin war marka xasuuqu dhacay waa 3 Oktoobar waana ku 993 marka Mareykanku hawada uga soo dhacay dadka oo shacabkii Soomaaliyeed la baabashay oo adiga yaa ku sheegay 96 aba dhalatay war dadka taariikhda wax bartay ha weydiinin dadka waa wardagaalkaas aniga joogay waxaana meesha ku dagaalamay ciidamada Mareykana iyo ciidamadii SNA oo hogaaminaya Allah u naxariistay General Aidi yay wax kale ma ogada SNA ciidamada militariga Soomaaliya la yiraahdo waana Somali National Army naxtin qodoba Allah ku galshay shaqfir hay cunin adoogan madaxa ku karaan gurta weyn war dagaalka anaga joognay oo Hargeysa ka qaxnay waxaana ahayd 1988 oo diyaaradihii Hargeysa dib anaga noo duqeeyay oo diyaarada Hargeysa ka kacay haday idin duqeeyeen koonfur baa nagu soo duushay maxaa u tiraadaan war anagu ma naan lahayn iyaga lahaa war beesha caalamku war bay soo saartay waxay tiri wada hadalkii Soomaaliya iyo Soomaaliland waa in dib loo soo celiyaa no war anagu xiriirkii waan u jarnay aryaadaha waxaan la yaabanahay baarlamaanka xeer hoosaadka ka doodaha la leeyahay mugii hore xeer hoosaad ma lahayn miya oo hadda la sameeyay war baarlamaanka waxa ka qayb galay waa madaxweynihii hore Xildhibaan Xasan Sheekh Maxamuud waana gudoomiyaha xisbiga mucaaradka meel misla galayaan waana markii in horeyso aan dheegu madaxweyne oo mucaarad aryaa waa markii ugu horeysay ee Soomaaliya yeelatay madaxweyne Mareykana mugaxaad la yaabaysa madaxweyne mucaarad mudax madaxa ka muday warnimayan Xasan Sheekh Maxamuud xisbigiisa magaci lagu qabsaday waa bedeleen Cabdullaahi Sheekh Xasan waa loo dhaafay kiisi waxayna u bixiyeen xisbiga midowga nabadda iyo horumarka war wax kale lama bedelin arfaa Ingiriiska wasla sidii Soomaaliga la bedelay war Ingiriis awal muxuu nahay hadii Soomaaliga la bedelay war xisbi magac Carabiya leh ma lahan qawaaf bay ka qaadeen war jawaan lacag in lagu dhaxtuura la cabsaday war annaga qawaaf Carbeed nooma dhimana qadar iyo imaaradan ugu diray war mushkil Ciraaq baa soo biirtay oo dhuxushii bay hadana xagga ka dajiyeen war ma haysaane xisbiga nabad iyo nolol amarna isdiiwaan galnaa la yiri xisbil xaakim loo bixinaya la yiri xisbil xaakim kaasa magaciisu Carabi yahay war boorarkii isgoos walba ka teeganaano nabad iyo nolol ka qornayda ka filnaad waayna war nimayan xisbil xaakim waxa la yiraahdaa xisbiyo tartama xisbigii ku guuleysta marka dadkan 4.5 lagu keenay goorma xisbil xaakim noqdeen war dadkiina waa loo aalan ma kolba dhinaca waa xiriirinaysan xilkan niman u qaado
bulshada hor ugu qawlaystay oo qaan ka qabay baa haddana qaadumeen raba cabdilow rag laga quustay oo qayli ayaa jira qad qaddamta calaya qamdam qamqam naxay ahayd shukran lak ya qamaad haydin qamaad qumayaha ku cunte nacam aywa kullay hagardaama waa kooxo qof kaligiis laguma koobi karo kullina kiis baa u wadayaal korkaagu qaac war gudoomiye cusbaa ee gobolka hiiraan filinkii musuqmaasuqa ee muqdisho ka socda u daawaday dad badan oo xabsiga dhigay maanta war ma ahayna waa daynayda waxa la xidha taliyayaashii guddoomiyihiina la bedelay war ayaantan aftuubka waa soo batay gabar walaajeeya ayaa cunug yar laga aftuubtay allaana soo badbaadsho waa soo baxday yahay walaashaa maahina abootadeeraad tahay shib naga dheh war dogognimisiinka badatay bay dhawo doorashada ka dhiyaasolen diyaar nagado hay mooshiidin ma ahaysan war galmudug inay barakooto laba dawlad noqoto laba madaxweyne iyo laba gudoomiye baarlamaan la sameeyay ma ogid miya taas dhagankin u eebtiin ma un abowro mansuur iyo shariifa doorado haynaniyow boowe puntland nabad weeye 10 Oktoobarna shirki madaxweynayaasha maamul goboleedyada ka furmaaya hoobasan walaha wadan sharle ata shartiin shaleedingu war ma haysan Puntland nidaam cusub ka soo baxay hadda ninkii xaaskiisa furo waa la ganaaxayaa baa la yiri $20 ayaana ku waajibayso boowe nidaamka lagu ilaalin hayaa war cabdiweligaas wuxuu magacaabay taliyaha kaadka ciidanka Puntland war madaxtooyada madaxweynayaasha Geedland Hirshabelle baa laga dhisayaa war bisha Oktoobar balaayooyin badan ay kulansatay 3 Oktoobar xasuuq baa dhacay 4 Oktoobarna qaraxii harkaaya saamaha xasuuq kala dhacay 5 Oktoobarna waa maalintii dhagax tuura leeyahay ugu milka fiicneed be 14 Oktoobarna waa kii weynaayo soobe 22 Oktoobarna kacaankii siyaasadda dhacay baa dhashay 28 Oktoobarna qaraxyadii hoteelada Naasahablood iyo baa dhacay marka bisha Oktoobar waa wada baroore ilaahay intii hore aan nooga simo war bilaay ama aragaan hor Oktoobar baan arna bisha Muharram beerna walax kala dilawda Oktoobar adaalaha mid kala ilowday ani idageyso Oktoobar waa tuma taayadii haday tay maxa lagu tilmaama waa taayadii qaraxii Oktoobar war bisha bilaay lama tahay dadka xun war cabdiduuxan ka diidna xilli waxaanu joognaa war maxaad u diidaysan balaayadu haday dhacday waa la sheegayaa war eebsha sheegay abdiduuga ka fayle warya ceeb duugdug ceeb faagfaaga dhan baasta ku dhabe